بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامي حبايبي ميل ولي بأدونك كشوكتان سلام حياة أو آد وشرف بدن وقالي أبهولي إني صو مرينايا إن سود الدواد إن شاء الله جنال سود الدواد إلى سبحانه وتعالى هاي بركايو إن أسكت دعينه إن محل ده عذرة ذا حن أدونك صاق لي محل ده مصيبة ده إلهي محل هذا إن محل هذا نجبت بادي النجي أنت مسلم يا ربي إن محل ده هلا دال إن شاء الله waxyaabaha badan ee ana loo sheegay oo ugu hortagi karna insha Allah inay ku dadaashaan arjeenaya waa inii soo galiye maxay ahayd sanjibiil iyo maxay ahayd huruudi waxyaabo aniga sameeynaayo kaleeto isku dardaraayo waa daawan kartaa daawateen waa daawateen oo maxay ahayd difaaca jirka kor inoogu qaadayo waayo difaacaga jirka haduu adag yahay cudurkaas way adag tahay maxaa la dhahaa si uu kugu soo weeraro haduu kugu dhacana maxay ahayd yani dhulka kuma galaayo kulama galaayo maxay ahayd difaaca jirkaaga sareeyo marka hal isku dadaal insha Allah dadaal maxay ahayd Ilaahay subhanahu wa ta'ala hayna barakay adinka dhan isku dadaalno vitamin C gan xoog hala saaro oo vitamin C wuxuu kor u qaadaa maxay ahayd difaaca jirka sida hore uga soo hadalnayba marka intaas waxay ahayd in waxaan rabay ay nagu darsado marka inta muslim ah ee ku dhimatayna Ilaahay waxa uga rajeenaynaa in maxay ahayd jannatul firdaws al-a'la uu ka waraabiyo uu shahiidin uu ka dhigo marka soo dhawaada maanta waxa wada insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka hadu ii saamaxo alaab oo rag caawinayso maadaama abaayaasha u soo galiyay maxaa la dhahaa xabadurashaadku waa aragteen sida dad badan subhanallah ee uga faa'iideen yani waxa inay yiri farxadeedu wallahi lama soo koobi kara alxamdulillah ma hadaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay u sugnaatay oo anigana ii haleelsiiyay marka wiilashana waxa u keenay maadaama maxay ahayd cabashadii ay soo badatay ee gabdhii soo wacayaan ragga xataa sidoo kale ay leeyihiin marway maxaa la dhahaa gabdhii waxba u keentay sida commentiyada mar waliba ka arkeen waana kula soconaa inay gabdhii ku faa'iideen xaqiiqatan commentiyada waxa ka arkaysaa waxa ka sii badan wallahi Ilaahay ila ogaa inta ila soo xiriireys gabdhaha ay dhahay 7 sano maana dhalin 8 sano maana dhalin 9 sano maana dhalin 5 sano 6 sano يعني بشيء كره 4 سنة 6 سنة 2 سنة 1 سنة وإلهي محل ده حبت رشادك داود وجود داري إن أورك قفك بحيو وإلهي الله سبحانه وتعالى هذا وإنا آمنا أو تاسنا آمنا مركز ذلك مرة بن هدي حنوسنت وإنا عافمات راسة إلهي كموسن أوران فريسة جماعة سارس وما مركز حبت رشادك وأنصببتي يعني إله داو وجود داري عفوا نقرأ لي هذا محي هذه عن لي هاي مركز هذا أبو فرح سنة أنت حبت رشادك أو كقيرتي هذا شلا ugu dambeysay gabar ay soo wicisay oo idhaysa maro maanta waxa sameysanayaa madax shub oo maxay ahayd xabad-rashaadka adiga ay soo galisay waaye ma sha Allah gabadhan hore isku la soconay fa alxamdulillah ma hadaas Ilaahay u sugnaatay marka adikana aad idinku mahad celinaya sida quruxda badan la asxaabteena kaleeti ku mar waliba inagu soo biiray nala socdo ee noo soo duceeyo waxyaabaha quruxda badan ee inoo soo qoro marka ku mar waliba carabkooda maxaa la dhahay afkooda ka soo baxa wax qeyr leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha inaga dhigo oo wax wanaagsan isfaro ee isjecel oo wixii xunna iska reebo way adduunka waxa wax yar oo kooban marka waxa wanaagsan waxa taqaanid in walaalaha uga faa'iideysid si ay kaaga soo duceeyaan ani waa inii sheeg wax kaliya aan rabo waxa waaye duco hadda gabdhahaas oo tirada badan leh in magaaleenka wallahi brooyin ku haysteen oo maxaa la dhahaa tubooyinka xirnaayeen oo dhibaatooyin badan qabeen yani dhaqaatiirsi u tagaayeen way ka daaleen way rajo dhigeen gabdhaha qaar xataa waxyaabaha oo rag qaba ay kala kulmeen iyo familiyadooda hadaa inii soo galiyo wallahi caloosha ina xanuunayso yani maxaa la dhahaa awlaada dhankeeda fa taas oo soo hadli doona Ilaahay laga cabsado dadka maxaa la dhahaa gabdhaha markay soo wax dhalin dhibaayo maxaa la dhahaa maanta dhan dhib ka dhaxwado ama reerka oo rag ha ahaadaan ama dad kale oo asxaabteeda ahaada Ilaahay ka cabsada in Ilaahay ka cabsataan rajeynaya waxa waaye adduunka waa laga tagaa qof walaalka adaa dhibtidne dhibka adigana dad kale kugu sameynaya ama balaayo kale ta Ilaahay kugu salidaaya soo marka afkiina waxa ka soo baxaayo ka taxadar xataa qalad ay kugu tahay gabar hada soo guursata bil kadib ama laba bil kadib inaad tiraado uur ma leedahay maxaa ka galay uurkeeda uurka Ilaahay bixiya haduu Ilaahay ugu tala galo uu siinaya laakiin qalad waayo wax qofka inaa la weydiyo uur ma leedahay maxaa waxaas walaay gabar yaro laba bilood la iqabay tiri uur raadina tiri fa waana xabeen miini sheegay dadkii ay dhibaayay tiri laba bil waaya xaraam عليك marka igraali ahaada inaas dhex galay maxaa la dhahaa waxyaabo kale ina fiidiyoyo kale ka soo sameeyaa raba oo dadka soo canaananayo maanta xogaa xanaaqsanaya marka igraali ahaada marka alaabta waxa ugu tala galay wiilasha oo walaalahay ah
ومحل ده إسبام كودا أو لوجي هاي وأنصفي عن وشقينين شهوذو يعني يرتاح وحنا مركي لقى هلا نعرف ما تكسيدي سبب حشود ماله وحي حق أسوي ناكسن لقى هلا إن لقى حشود ما سماها marka maxaa la dhahaa ragga oo shahwadooda waxay qusaysaa oo hooseyso ku adag dhanka maxay ahayd haweenkooda inay ur qaadaan ku adagta oo cilada ay asaga saaran tahay alaabta ay qusaysaa yaa rabbi inaa ka faa'iideysataan oo maxaa la dhahaa ku qeyrtaan sida gabdhaha eegana ay ugu qeyreen oo ilaahay daawo ugu daray ba ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaga rajaynayaa marka waxaa haysanaa xabatu rashaad laga sheekeyn karaayo dhaqaatiirtan dadka lacagta ka qaadanaayo oo maxaa la dhahaa bacdow soo qoraay baasha ma isaga qoraan subxaanallah baasha caadi ma aha ya marka mar waliba waxa xoog saarta waxyaabihi maxaa la dhahaa waxyaabaha oo dib nabawiga ah oo maxaa la dhahaa aan ka dhaxalnay nabigeena maxamed cali salaatu wasalaam iyo asxaabihi waxyaabahaas aan xoog saarno waxyaabahaas wax ka fiican dhirta sanadkan waa la waayay xaqiiqatan marka dhaqaatiirta lacag un bay daldalanaya marwo lacag inigama qaadanayso kaliya maxay adikoo gurigiina joogta inii soo gelinaysaa kaliya waxay iniga rabtaan waxay tahay duco fa xabatu rashaadka waa soo shiidnay alaabtaan lagama sheekeyn karaa maasha Allah please gurigiina yana laga waayin caruurtiina xataa kastarka iyo waxyaabahaas cabitaanada markaa shiidanaysaan wax ugu shiidaysaan wax yar ugu dhax hada aad u fiican tahay hooyooyinka waxyaabo badan ay qabataa intana waxaa ku heesanaa dhagayara waaye cabdurashaadka waa soo shiiday aniga shiitay waa tanaa miraha markay tahay saasay u taalaa please ayadoo shiidan ha soo iibsanin waayo markii la shiidayo wax lagu daray iyo qaabka loo shiiday ma taqaanid waa taasaa cabdurashaadka mashiinka oo heelka lagu shiidaa ku shiidanaysaa insha Allah kanna dhagayara waa wada naqaanaa dhagayare lagama sheekeyn karaa ayaa ku dhahay dhankan oo maxaa la dhahaa rag iyo haweenba dhankan oo fertility-ga aad u maxaa la dhahaa fertility-ga u caawiyaa soo dhagayaraha siduu u yaalaa saan u yaalaa dhagayaraha ma garanayo qof aqoonin inuu jiro inkastoo Soomaalida ayaan kala af aan nahay marka ina maxay ahayd ka faa'iideysataan arjeynaya dhagayaraha saas u yaalaa ma aqaan kaamirada si fiican u jeedana taasa badana shaaha iyo briiska waxyaabahaas ku darsanaa Soomaha afan igaraale hada marka maxaa la dhahaa kaasa oo madaxa yar ee kuusan leh dhagayaraha dhankan oo ragga haduu shahwadooda maxaa la dhahaa inuu badiyo uu awood u yeelo maxay la dhahaa sidii loogu talagalay ee u socoto laguma gaaro asaga iyo xabatu rashaadka gabdhahana sidoo kale gabar abaayo hadda waxa jirta ma sha Allah alaabtan xabatu rashaad ma isticmaalin kana isticmaashay way ku qeyrtay xabatu rashaadka way dhibaysay soo marka maxaa la dhahaa waa inii soo gelinaa iyo qaabka ay u isticmaashay abaayadaas iyo dhibaatooyinka ay qabtay inta sanay la qabay video ka soo sameeyay haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala idmo iyo hadii ayadana maxaa la dhahaa ay ogolaatay in ayada xataa ayadoo hadlayso codkeeda ay inii soo keeno waa isku dayaa insha Allah marka maxaa la dhahaa dhagayaraha waan soo shiiday waa ka sax xabatu rashaadkana way shiidan tahay intana waxa ku haysanaa fajil ahmarka ah haysta ama maxaa la dhahaa English radish suuqyada lagu gadaa igaraali ahaada Soomaali waxa waaye hada kan aad helayn oo maxaa la dhahaa oo casaanka ahmarka ah waxa helaysaa asagoo cadaan ee bagalka dabadiisa dambe ma aragteen waaye bagal leewa waxba ma aha asagoo cad u jira asagoo maxay gaduudan u jira hada laakiin kan helaysid kana maxay kugula dardaarmi lahaa ma helaayo soo ma ahan hadaadan helayn waxa isticmaalaysaa ii sheegay kan cad waad jaranaysaa salar sameysanaysaa waa cunaysaa insha Allah isku day maalintii ina qaadato mar waliba salar ka sameysato waa inii soo gelinaa qaabka xataa oo salar looga sameeyay waxyaabaha lagu dardaraa haduu Ilaahay yiraahdo marka qofkii kale oo heli karay ani hadda Kenya dhan waan ka waayay alaabta xataa mar hore ahayd inaan soo geliyo igaraali ahaada waxa u soo dahay waxay tahay waxaan waayay mirihiisa la rabaa geedka miraha uu dhalay seedka uu dhalay ala raba buduurkiisa soo buduurki marka mirihi waan waay meel kasta ka raadi meeshan kaliya meesha wax ka heli kartid waxay tahay hindida odo hindiya sidoo Ilaahay waa la keenaya fa waxaan ku dhamarka dambe wuxuu dhahay mala keenayo marka hadaa heli kartid radishka seedkiisa Amazonka waa laga helayaa waa arkay Amazonka ka dalbada insha Allah Amazonka waa ka helaysaan haduu Ilaahay yiraahdo dadka meelahaas jooga ka hadlaya dibadaha iyo meelahaas Amazonka ka dalbada waxa sameynaysaa marka mirihiisa ah heshid waa shiidaysaa marka shiidatid mirihi waxa soo qaadanaysaa mirihi qaad intaas la eega soo qaadanaysaa qaadada isticmaalayna waa qaadada mid ugu yar caana isticmaalaysaa caanaha low fat ha ahaadaan ama kuwa kale ha ahaadaan ama caana almond ha ahaadaan ama caanaha maxaa la dhahaa ha ahaadaan oo qumbaha wax alla caana waxa helaysa insha Allah qaadadan yarta haafkeeda soo kumaanan deelin qaadada mid yar waaya waliba haaf oo buuxda ma aha waa haaf afka hore fooda intaas waxa ku dareysaa hadana oo dhagayarihi ah hadana waxa soo qaadanaysaa buduurki seedka igaraali ahaadaya
عربي نقدر فعل لأن عربي واجعلها بيرميني شيء إنجليش أساق كجعلها سببتنا حتى لغة القرآن الكريم قرنتها وأفكي وأصحاب تاني نبي عليه الصلاة والسلام يكون هدلاين وأفكي آخرهم مركات تجنو إلى سبحانه وتعالى أكل هاد اللهين مركا يقرأ على عربي نقدر عربي أنت أنا كل صوت هذا مدافع كري مركا miraha oo maxaa la dhahaa oo kan hadaa heshaan waaya asagan intaas oo kale taa isticmaalaysa caanahaaga ku darsanaysa malab hadaa haysata marka malab oo saafi ah 100% waa ku darsanaysa qaado ani hadda been mi sheegay malab saafi oo dhan ayaan taan soo waayay waxaan saafi ahayn ma isticmaali kari hadaa haysatid waa hadaada haysanin waa ka maarantaa muhiim ah in isticmaashid marka isku darsato tartiibtaada waa cabaysaa subaxii adigoo gaajaysan hal saac ka hor ama 30 daqiiqo ka hor cuntada cabaysa waa adigoo baahan calooshaada la rabayaa cabaysa hal saac ku joogaysa ama 30 minute ku joogaysa dan waxa cuni karto quraacdaada ma sha Allah iska cunaysa sidoo kale maxaa la dhahaa habeenkii sidoo kale waa samaysanaysa habeenkii marka muhiim ma aha cashada kadib cashada ka hor sida aad u jeceshahay aad u qaadanaysa laakiin subaxdii waxa laazim ah in ii sheega maxay hayde waa ina qaadataa inta aad cunto cunin ka hor saad subax marka dukatid tartiibtaada daacabto يا أديك تقاليد وقتك عبيس إن شاء الله ستايم هليست عبيسة وجوجيسة ويلش ولا عليه إنك فائدتان أو إفهمتان أرجينا يا بإذن الرحمن مراها داويسة وحبا اسكو مشكليننا كان صوق قضاء صوق عدان إبقى لك محالة لها سلكيس دنبا أما دبديس سأفهم الصومالي يعني سلكيس دنبا صوق قضانيسا أصيانا محايا هذا صلر كاكو درسانيسا وحاجة عشاء وعنيسا وأنا إني سوق لنا يا قابك حتى داربتان وصلر لوغ سميايا عنتوين بدنا صوص سعودان إلهي اللي معاه time هايسيو waxa ku soo gali mashquulka iska badan marka wiilku cabaya ma sha Allah waxa ku dhaay dhibaatooyinkaas oo dhanka oo maxaa la dhahaa cilada asaga lagu sheegay oo hadii maxay ahayd shahwadiisa oo hooseyso shahwadiisa oo maxaa la dhahaa sidii loogu talagalay aan u soconin tiradii numberka laga rabo oo hooseeyo waxaas dhan way dhamaanayaan biidni rahmaan alaab lagu bawaayo oo la tijaabiyay in ani mini faaninooy miniga gadanooy ma ogtahay waxaan hadaan idinka gadi lahay ha yani markaas وحفانينا واي لكن alaabtan xaqiiqatan alaab lahuba waaye ku dhaga alxamdulillah dhaha guriina idinko joogo aad daawanaysaan aan idinku keenay lacag la idinka ma qaadanayo samaha marka faa'iideysta anaga waxa inaga rabnaa afwan ducada inaga rabnaa caanaha marka caanaha wax yar ha yar diirnaadaan karkar saa'idiyo ahaaniya wax yar oo beenaha ku diirnaada caanaha ku qaso subaxi cab habeenkii sidoo kale waxaan kale oo ka codsanayaa cuntooyinka oo high proteins ka ah ina cuntid oo proteinka aad ugu badan yahay broccoli oo kale ila afkay beenka daaloosaska kala nooc oo kale waxa la dhahaa waxa kale oo aad u fiican fishka bahalkan kala rubyaan maxaa english lagu dhahayo waa bilaaway rubyaanka bahalka badda ku jira waa adi argoste Soomaali dhahda samaha rubyaan ama gambari waxa u taqaano waxyaabahaas oo dhan aan cunaysaa brownies ma heeno yes waxyaas badda ku jira badso hada ciladan ah haysato aboowo insha Allah ilaahay maxaa la dhahaa inaga farxiyo adinka dhan rabbi ha inaga farxiyo waxa kale oo badsata hadu ilaahay broccoli-ga spinach-ka qudaarta cagaaran oo dhan waxyaabahan kale oo berries-ka raspberry waxyaabahaas anigu juice sameeyaan hatta soo gelinayna plain yogurt-ku ku fiican yahay tinku ku fiican yahay tinka watiina wazaytuun mataqaaniino soo marka tinka oo maxaa la dhahaa suuradaas فسرة أيضاً محل صف وحق سوق قادنا قصة إذا سوق قادنا إن شاء الله تفسير كذا يوم حالة لها يتينك أنا جو كينا يتينك دكان ماذا لو كذا أسوق قيان أما أسوق قلالان وهلسة إنجليش فيكس إنه هاي رجينا يا هذا هلس دو هذا هل إنه مشكلة ما لو حيابها كلا أسقعنا يساس بينش كقدرة عجارة ودان بيه بدن وحكلو لازم إن أكسايز أسميه مالنتي 30 minutes قصب واي مالين كسر 30 minute exercise سمينايسا هرددنا sidoo kale 6 saac ka badan hurdo kugu filan waa inaa maxay ahayd seexata sidoo kale ii sheeg maxay ahayd stress waa inaa iska yareysaan stress been ma ahan dadka dhan waa la fikiraya waa maxay ahayd wax jiro laakiin waa inaa iska yareysaan tartiib waxa uga fogaan kartaan dikriga ilaahay waxa yani oo aad awoodin ina isku stressid ma aha dad waxa arkaysa waxba ahayn waxa ku dhahay stress isku guridayaan isku waalayaan marka naftaadii hormooniskaaga u dhibaato u keenaya uu kaaga dheelaya fa marka tartiiba insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhaho ukunta xataa badsada ukunta midaan oo digaagada caadiga ee u dhashay hal isticmaalo digaagada caadiga ee tan kale ha isticmaalin waxba faa'iido kama helaysid yani aad inagu fiican tahay rag iyo dumarba marka insha Allah inaad faa'iideysteen rajeynaya subax iyo habeen cabirka waa inii sheegay
waxaan yiri waa iga soo duceynaysaan insha Allah biidni Rahmaan Ilaahay maxay ahayd wax badan oo baraka leh adinka dhan Allah in siiyo oo ku faraxdaan فقبلين قالي أديك الوقت إني سوى دقيرها ما شاء الله يا بايد سوي استعمال شهد الله سبحانه وتعالى ده يوم هذا وحيابه سجدا ويسي مرك خير إبركة إفرحة إني رجينا يا الملول بدون كشوكتا سيدا كلام حاهل مع بصشة أو مشوية يتونت أو مشوية إبليس بس يتونت آد وددالة ovenka wax yar gelin kartaa maxaa la dhahaa basasha markay soo yara madmadoobato cuni kartaa dabka saaran kartaa sidoo kale xataa muhiim ah in aad ka dhigato waa jarjari kartaa marka jarjarto basasha toonta cucumberka plain yogurtka laga sheekeyn karaa ku dhaw jirkiina ka qabanaysa sida difaaca jirkiina iyo sida alaabahan kaleete wax ugu tarayso waa inii soo gelina ilaahay ta wax kasta waa jeclaa wallahi inay soo geli laakiin mashquulka iska badan si ilaahay adduuna asaaska ah marka qeyr iyo baraka iyo farxad ilaahay subhanahu wa ta'ala inii gaga rajeynaya in ay fahantaan rajeynaya hadii maxay ahayd waxyaabo kale u baahan tahay ama inaad si qaas ay igula soo xiriirsan telefonkayga youtube ku ka buuxa ama isoo qor ideh waan ku soo qoraa biidni Rahmaan hadii aan arko فمن ولي بقى جوكتا وحا إن الله سبحانه وتعالى ها إن بركة ها إن حفظية صد قروح ذا بدل على السعوتان وإني جيب مهد علينا يا دمانتي ناقص كدوبا وحا إن الله يا هاي جزاكم الله ألف خير واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه